xaqiiqeena waxaan ogahay waxaan dadku ogeyno oo aan rabaa inaan halkan ka caddeeyo bishaaro baanda sharciga uma xidhna waxaan arkayay dad badan oo lahaa adeerkeed buu xidhan yahay maxamed kaahin iyo marna awowgeed hor uma xidhna hadday u xidhan tahay wuu sii dayn lahaa bishaaro waxay u xidhan tahay maxamed muuse biixi cabdi bay u xidhan tahay bismillaahi raxmaani raxiim nabad daawadayaal idilkiinba ah meel kastoo aad joogtaan halkaad naga daawanaysaan waa youtube-kayga baashi cumar stuudiyaha waxaa igula sugan saaxiibka injineer cabdiqani daahir gaas oo ah falanqeeya inta badan arrimaha siyaasadda geeska africa aada u falanqeeya maanta qodobka miiska inoo saaran ayaa waxa uu yahay sida aad dhammaantihiinba aad wada ogtihiin muddo ku siman 2 bil iyo bar ayaa waxaa xabsiga ku yaala magaalada hargeysa ku xiran gabar wariyaha oo islamarkaana magaceedu uu yahay bishaaro baande oo reer cariga iyo dhanka iyo ingiriiska ah gabadhaasi ayaa dabcan waxay u xiran tahay muuse biixi hase ahaatee warar isa soo taraya ayaa waxay sheegayaan in qofka u xirantaa uu yahay wiilka muuse biixi hadalkaasina waxaa ka dhawaajineen xasaanad leh oo magaciisu yahay xildhibaan axmed qaliif arrimahaasi waxaa si gaara isha ugu hayay islamarkaana la socday saaxiibkay injineer cabdiqani daahir saaxiibkaas soo dhowo waa dhowahay baashe dabcan asxaabtaadan waa salaamayaa gabadhani horta warbaahinta sideeda dadka weriyaasha iyaga isku walaala iyaga isku qabiil ah aad iyo aad dabcan gabadha xadhigeedana waa ka xumaa bishaaro baandaa la dhahaa dabcan waana soomaalida ku nool dalka ingiriiska gabadhani muddo 2 bilood iyo dheeraad ah waxay ku xiran tahay xabsiyada ugu xun xabsi la isku xiro bili aadanka lagu ciqaabo iyadoo ay qof dumara ay tahay xaalado badan ay la soo dirsaan sidoo kale iyadoo ah qof asthmatic ah oo dabcan neef bay qabtaa haddana meeshu iska kulushahay dabcan gabadhani saaka oo dabcan axmed khaliif oo ah xildhibaan xasaanad leh ayaa dabcan iyo wiilka muuse biixi xalay baa waxaa jirtay buug baa lasoo bandhigayay oo madaxweynihii hore somaliland laga qoray ninkii silaanya la oran jiray buuggii baa dabcan la iswarwareystay dabcan dee madaxdii o dhan baa isugu timi madaxdii somaliland oo dhan axmed khaliif iyo wiilka madaxweynuhu dhalay ina axmed muuse biixi cabdi baa la wada kabtamay markaasuu afkiisu ka caddeeyey wuxuu ku dhahay bishaaro baande yay u xiran tahay markaasuu intii u yimi kudhi axmed khaliifow bishaaro baande anay ii xiran tahay nin ka hadli karana ma jiro oo oran kara gabadha sii daa dabcan gabadha waa gabadha qof walba beel buu ka dhashay gabadhu waxay beelweynta habar jeclay ka dhalatay adeerki awowgii buu ugu beegan yahay maxamed kaahin salebaan gaal sidoo kale adeer buu ugu beegan yahay gudoomiyaha xisbiga wadani oo ninkan xirsi caali xaaji xasan la dhaho adeer buu ugu beegan yahay wasiirka caafimaadka gaafaadhi la dhahana awow buu ugu beegan yahay 4 nin oo xasaanad laa ku jira ninkan waa gudoomiyaha xisbiga wadani oo xirsi caali xaaji xasan wasiirka arrimaha gudaha oo de ninka ugu baawarka badan xataa dee waxba ma oran karo gabadha halay soo daayo maadaama ay qof dumara tahay dee dabcan xabsiyo waxaa jira xoogaa normal ah laakiin xabsiyada shoolada ah oo loogu talagalay dadka gaangiska ah dambiyada waaweyn galay haa in lagu xidho qof dumar oo neef qabta dumarba nin raga hadduu ahaan lahaa dabcan dee lamaba dabagaleen laakiin gabadhan reerkeedii iyo dadkeedii inay ilaaween baan u malaynayaa oo maanta qof ciddaas ah hal nin baa jira ay ilmaadeer yihiin oo qurbaha ku nool oo yaasiin bidaar la dhaho dabcan aan dee abti ugu beeganahay yaasiin unbaa ka hadla nin dhalinyaro ah oo dabcan oo holan ku nool dhalinyaradii habar jeclo yar iyo weyn meel kastay daafaha adduunyada joogeen qof walba shib buu galay war gabadhani miyana dad ka dhalanin war gabadhani miynan cid ka dhalin walaaladeed aaway faamilkeedii aaway waxaa sida gaarka loogu heystay iyo arrimahaas oo dhan waa gudagali doonaa markii wadan isla daawano xildhibaan axmed khaliif oo arrinkaasi maanta baraha bulshada ka sheegay xaqiiqeena waxaan ogahay waxaan dadku ogeyno oo aan rabaa inaan halkan ka caddeeyo bishaaro baanda sharciga uma xidhna waxaan arkayay dad badan oo lahaa adeerkeed buu xidhan yahay maxamed kaahin iyo marna awowgeed hor uma xidhna hadday u xidhan tahay wuu sii dayn lahaa bishaaro waxay u xidhan tahay maxamed muuse biixi cabdi bay u xidhan tahay waa tahay gaas adigii daawadaasha dabcan waa ila daawateen xildhibaanka sida uu ka dhawaajiyey bishaaro horta dembiga ay ka gashay somaliland muxuu yahay
wari horta waxaa jirta qofka markaad dembi aad ku soo eedeynaysid waxaa jirta qawaaniin caalami ah tusaale ahaan qofka markaad xidhid waa inaad 24 saac ka bacdi aad maxkamad keentaa laakiin rejiimka ka jira waqooyi galbeed ee dalka Soomaaliya waxa uu caadaysay tacadiyada gaarka ah dadka wariyaasha in laga galo gabadhani eedeyn baa loo soo jeediyay eedeynteediina ma faahfaahsana wax cadna ma ah waxa lagu haystana waa maxay waxa la leeyahay waa maxay sababta wax uga sheegaysid wiilka madaxweynaha salahan dhaliish waxbay tuusaa baasho laakiin dawlad kasta mucaarad muxaafad way leedahay laakiin hadii la eegto la leeyahay dabcan dhaliisha oo aan ku dhaliilay waa khalad waxa jira waxyaabo dictatorshipnimada ku caan yihiin Muuse Biixi iyo asxaabta ku xeeran waxay ku caan yihiin dadka social media wax ku qora dadka warbaahinta jooga kulligood dadka hadda Hargeysa ka shaqeynaya hal qof oo hadli kara ma leh hal qof oo xataa joog dhigi kara male ama waxa qori kara kulligood waa la socdaa beejidkooda sirdoon qarsoon baa jiro la socda gabadhan eeda loo soo jeediyay waxa weeye waa maxay sababta wax nooga sheegaysid iyaduna dhaliisheeda sheegtay oo waxa jira waxyaabaha ay didsaneedayeen tusaale ahaan gobolada waqooyi oo kale waxa jira sadbursi baa jira sadbursigaas wuxuu yahay tusaale ahaan baashow gobolada Somaliland waxa ugu canshuur badan gobolada bariga ugu canshuur badan gobolada galbeedka tusaale ahaan Berbera ilaa Gabiile ilaa wixii xagga canshuur lagama qaado gobolada bariga Somaliland aad baa loo canshuuraa tan kale waxaa jirta qandaraasyo tusaale ahaan wiilka madaxweynuhu dhalay saadka dreeska ciidanka oo dhan buu keenaa inantiisi waxa kale keentaa wuxuu noqday madaxweynihii loo dhiibay taladaba inuu hanti abuuro oo haddana xeyndaab ahaan qoyskiisa uu kusoo koobo tan kale wuxuu keenay qof allaala qofkii ka fikir duwan in la xiro ama la dilo ama uu cararo tusaale ahaan inta nin ee ka barakacday ama saxafiyiin ah baan ku tirinaya nin baa jiray Axmed Sakil oran jiray hadda Muqdisho jooga hadda muuqaalkaygu uu gaari karaa nin habar Yunus uu cararay xabsi buu almost 2 sano ku xirnaa maxkamadna lama soo istaajin uu cararay Bakayle iyo Teera madaxooda lacag waa wanted weeye gabar kale yara amiira la dhooyina Muqdisho ku nool aan soo arkay way carartay yar kale isna dayax films la dhahaa jira oo Muuse Biixi familkiisa ah uu cararay ninkan wuxuu taagan yahay aniga kaliya aan noolaado aniga kaliya aan dargo aniga kaliya aan wax yeesho gabadha bishaara baandana walaal dulmiga haysta iyada maaha ee waa tulkeed baa gabadhan gabay marka aad waxaad ugu tuuraysaa dadkii ay ka dhalatay ay arinka ka gaabiyay gabadha tulkeeda zero ah tusaale ahaan boqorkoodii ama boqor Buurmadow ilaa iyo hadda dibad meer weey Somaliland ma himaan karo iyadii waad aragtaa xarig bay ku jirtaa waxaa jirta tusaale ahaan baashow Soomaali baan u nahay gabdhuhuna waa sharafteen iyo caarkeena weey gabar insaan loola dhaqmo oo muddo 2 bilood iyo dheeraada aan maxkamad la soo istaajinin maalin kastana eediro nooc kale loo soo jeediyo gabadhaas tulkoodii ama habar jeclaa gabtay habar jeclana waxay noqotay dabcan wax aan dadkooda gabdhuhuna waa gabdho waa la isku diri jiray gabar dagaal ay kicisa kumanaan ku dhiman jireen I don't know gabadha tulkeeda gabay anu waxaan oran lahaa tulkeeda gabay wasiirka arrimaha gudaha ay leeyihiin waa ninka ugu baawarka badan ina Muuse Biixi baa ka adag wiilka madaxweynaha ka adag oo joog u oran karin Axmed Khaliif Xudhay xildhibaanka hadalkiisa waxaan ka dhadhaminayay inuu dhahay xataa maxkamadan ka cadeynaya xildhibaanka baa laga yaabaa in la xiro oo diyaar baa uu leeyahay inaan faafaahin ka bixin ani xataa waxaan hadda u baqayaa xildhibaanka Axmed Khaliif in la dhoo soo bax waa lagu xirayaa ama la jir dilo meeshana dulmi baa ka socday dulmiga hal iska daayo waata gaas aad u maasan tahay dawlad ilaa iyo dhamaadka muuqaalka hadii aad nala joogteen waxa idin leeyahay waad ku maasantiin joogistiina hadii aad nagu cusubtiin waxa idin leeyahay nagu soo biiro waxyaabo badan ayaad naga faa'iido doontaan balanteenu waa muuqaalkan idinku meel sare gaarsiiya intaanu markale kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo amaan Allah